السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa liiga soo codsaday videoganeeto DIY sidaad xarfaha u samaysan lahayd bannerka Ramadan Mubarak, Eid Mubarak, anything, welcome home and augurio, congratulations, hambalyo and heblo magaciisa, whatever aad rabtid inaad samaysatid banner saa u samaysan lahayd inaan ku tusiyo yes waxaad samaysan kartaa alphabetkii aad Google ku qori kartaa, aad kasoo raadin kartaa, laakiin waxaan sameynaynaa screen recording, screen recordka arkaysiin documentiga. Okay, documentiga Google wuxuu qabaa documentiga furaysaa. Okay, waxaa furanaysaa new page, hoosta kusoo jirteen waxaa furanaysaa new page. Screen recordingkan waa arkaysiin, waa idin tusinoyaa. So alphabet baan rabnaa qorno, capital letter A ayaan qoranaynaa, si small y ma arki karti soo maha, aad u yar tahay. So halkaana tegaysaa sizeka, font sizeka 96 markaa geysintaasuu noqday. haddaa rabti inaad kasii weynaysintaasna bold ka dhigi kartaa, haddaa bold rabin saasa ka dhigan kartaa. may la fahanteen? Okay, screen recording waa arkaysiin. So numberkan weynaynaynaa, waxaa ku test garaynaysaa adiga inta is leedahay numberka aad rabtid. Okay, 300 aan geynayaa, letterkaas ay soo baxday. Okay, centerkaan dhigaynaa because waxaan rabnaa inaan si fiican ugu copy garayno soo maha. Then waxaad samaynaysaa warqad plain ah soo qaadanaysaa. Okay, laba isugu laabay because waxaan rabnaa samaysano size yarka ah, aan rabnaa samaysano. waa ujeedaa haddii aad rabtid si fiican u aragtid hal u samayn kartaa, because anigi rashaan ku jira Ramadan Mubarak ereygaanito dhowr jiro soo noqonaya. So waxaan ku noqonaynaa inaan ka dhigo bold. waa ujeedaa si uu kala duwan yahay. Bold markuu yahay wuu ka weyn yahay, markuusa bold yahayn wuu ka dhuuban yahay. waa ujeediina umalaynayaa si uu isku bedelayo. Okay, so boldigan qaadanaynaa because waxaan rabnaa ereyo waaweyn aan rabnaa. Okay, qalin pencil qaadanaysaa. Okay, and then waa copy garaynaysaa. Okay, aniga just example aan ku tusinayaa. waa copy garaynaysaa, dan xarafkii markaa heshid warqadii qaadanaysaa, waa jaraysaa wixii oo dhan. maqas waxa u baahan tahay oo af yariis leh, waa jaraysaa. Okay, xarfadii oo dhan qoranaysaa eedii hadda ka bilaabmay, laakiin arti qori kartaa, keydii qori kartaa, empty qoraysaa. So adigi waxaad samaysanaysaa intii u baahan tahay ayaa copy garaynaysaa. bright ka dhigay screenka saan si fiican ugu arko. waa ujeedaa umalaynaa soo maha. So halkaan waa ka faa'iideysan kartaa haddaa computer haysatid, saas u copy garayn kartaa. or else ideerka kale aan ku siinayo waxay tahay karaali noqdo bright ka dhigay ideer kale aan ku siinayo ayaa rabaa inaan ku tusiyo. Okay, ideerka kale aan ku hayo waa tanaa dollar store lagu gadaa. Okay, Dollarama $3 la gadaa. alphabetkii oo dhan oo dhalaal ah, gold yaalo, silver kana yaalo, color kala yaalo. warqadahana aad soo qaadanaysaa. warqadahana aad u adag yihiin. Okay, iyagoo color ah waa jiraan, ayagoo saan ah waa jiraan. So ka faa'iideyso. Okay, so alphabetyadii waa kuwaasa kulligood oo kuda jiraan iyo numberadiiba. Okay, so alphabetyadii gadaal ku qoran yahay inta letter oo ku jirto oo dhan. waxaa ku jirto inta xarfood oo ku jirto oo dhan waa ujeediin somaha. 3 ayaa ku jirto. Anyways, saan kuu sheegay alphabetkii saana soo gadan kartaa. Okay, which is easier. So waa ujeedaa waa fiiqeen leh oo ku dhijinay dhagdhagu leeyahay. Okay, so haddaa rabti inaad madow ku isticmaashi, madowga ku isticmaali kartaa. haddaa rabti inaad cadaanka ku isticmaashina, cadaanka ku isticmaali kartaa. Okay, so waa idin tusinayaa waa jarjaraynaa and then waa idin tusinayaa. Okay, so aan jarjaranaya waxayo dhan, waxaan isticmaalayo dhan. So daawasho wacan insha Allah waa soo noqon doonaa hadduu rabbi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إنترنت أتكلم كرسارة وحبانته مقص وحبانته قلوية نيتو ما استعمالينه، لكن سه حدي أو بانته إن أساسرتي لو ورقة العمل مدوق عدان كترتين سكرساتي وحيرن إن شاء الله. وحبانته هول بنجر كاسيتو دال ستورك الوجدا كان دال ستورك الوجدا حواي جيدها أو إن ريبن كا أو علافت مركا جفتي وحاسة حريسيد مسرة أو بانته قلم بس أو بانته إن ألفبت كي وصو جرجرنا إسا أنت أو بانته رمضان مبارك، عيد مبارك.
and welcome and heblow magaciisa and congratulation whatever adiga jeceshahay inaad banner ka samaysatid ayaan ku tusinayaa alaabahanayto dhan dollar store-ka ka yimaadeen Dollar Tree-ga Dollarama and so ka adeega meelahaas haddaad jeceshahay wax gacanta ku samaysatid saa ujeedid waxaan u kala jarayaa labaan isugu laabay maqasa isticmaalaya ani waxaan haystaa geed lagu jaro oo lagu cabiraa haystaa laakiinse waxaan rabaa inaan tusiyo sida ugu easysan haddaa rabti waa cabiran kartaa and then mastarada isticmaalaysaa dan suu kugu noqdo sizes la eg so wax yar oo kala dheeraad oo ujeedaa mararka qaarkood maqaska waxaa laga yaabaa inaa xoogaa yar wuugu qalqalocisid so waa toosinaysaa baa maqaska kusii jaraysaa halkaanito measurement yaa u baahan tahay inaad samaysatid flagga oo hoose haddaa rabti sida kale u jaran kartaa triangle-ka oo gudaha soo galayso adiga styleka jeceshay ku xiran tahay laakiin aniga usually stylekana ku dhamaystirsama waa ujeedaa qalin pencilka isticmaalay meesha maqaska jaraayo wuxuu noqonayaa dhex bantarka oo qalinkaasi xoogaa ugu tirtirmaya cabirka laga rabaa inaad samaysatid marka xabad samaysatid inta kale waa ka koobi garaynaysaa so easy ku noqonaya waa ujeeda quruxda kusoo baxay already cadaanka isticmaalaynaa madowga rabinaa isticmaalay iyo cadaanka iskor saaro laakiinse waxaan arkay designka inuu ku qurux badan yahay cadaanka keliya very simple clean wuxuu noqdo qurux keliya ah so arki doontiin markaan dhamaystiro insha Allah so walaashay iga soo dalbatay oo tiraahday waxay kasoo dalbatay channelkayga kaleeto Unique Hooyo haddaad walaalaha igu xiran labada channelba jazakallahu khairan kuleeyahay laakiin haddaad ku cusub tahay channelkayga channel kalaan qabaa Unique Hooyo ka daawo videoyaasha badankood halkaana waxa weeyaan craftiga DIY-ga waxyaalaha oo maaragtay gacanta lagu sameeyo aan ku rabo inaan kugu dhiirigeliyo oo detail ah ayaan jeclahay inaan channelkan kusoo dejiyo channelkan wuu cusub yahay so insha Allah igu support garay haddaad tahay walaalaha igu xiran Unique Hooyo subscribe share garay la sii wadaag walaalaha kale waa ujeeda hadda xaraf markaa rabeen aan ku dhajiyo cabiraad kale aan sameynaya laakiin cabiraadda waxaan ku siinaya waxa waaye adiga ra'yigaan ku siinaya haddii aad tahay qof aan qiyaasi karin ani waa iska qiyaasanaya runtii maadaama ay cadaan bahashii cadaan oo dhalaaleyso lama dareemi karo markay kaa fog tahayna so waa ujeedaa markii laga furo dhexda xataa waa laga fujinayaa so markaa meesha ku dhajiso qurux keliyaan ku leeyahay waxaa loo maleeyaa inaad wax ku qortay manaada ku qorin waa ujeedaa waxaa waaye Dollar Store-ka kasoo gadatay Dollar Store-ka yaalaan so ka faa'iideyso gold isagoo ahna wuu yaalay letteradaneeto haddii aad rabtid different colors I'm not sure but waxaan arkay silverka iyo goldigaan arkay hol bencherka waa kanaa meeshaas isticmaalaysaa geesaha isticmaalaysaa iska ilaali ha u dhaweynin all the way meesha oo korka ah maxaa yeele waxaa laga yaabaa inuu kaa kala go'o hadhowti xoogaa yar hoos soo deji waan tusinaya markaan gelinayana gadaal aan marinaya haddaad jeceshana horeyda soo marisid xoogaa yar waxa waaye fool xumo bahasha loo jeedaa laakiin gadaal mari waa idin tusinaya insha Allah so alphabetkii oo dhan aan ku dhajinaya waa ujeedaa so easy u yahay so u fudud yahay oo aan isugu aadiyay laba xaba camal inta isku kor saar ayaan hoolku u sameynayay labada xaba inta isku kor saar ayaan duleelku isku sameynayay saa ujeedeen marka bahashana gadaalan ka mariyay midka kale aan tusinaya kaneeto waxa waaye boobsiis arbeen aan ku sameeyay saad u aragtiin videoga si dhaqso badan hadda aan tusinaya soo xarafka saad u qori lahayd Ramadaan oo mubaarak sida u socon lahayd ina u gelisid waaye so xarafku ka bilaabanayo xarafku ku xigo xarafkiisa kale so ujeedaa saan ka bilaabayo waxaan ka bilaabay banaanka gadaal and then dhinaci kaleeto kii kaleetona banaanka gadaal and then dhinaci kaleeto saas ku wadaysaa but waa in spellingka sidii saxda ahayd oo loo qorayay aad usii dhigataa xarfadaha isa sii daba dhigtaa haddii kaa qaldanto waa inaan kulli soo saartaa mar labaad aad haddana toosisaa marka intay saas kugu dhici lahayd jabkaaseeto marka horeetaba dhulka dhig saa u qori lahayd ama hadalka u ahaan lahaa u qor u dhig and then bahasha gelgeli dhulka camal ku fiday miiska whatever aad jeceshahay soo ujeedaan quruxdu kusoo baxay aad iyo aad looga helay ma aha geed oo colorful ah oo kusoo indhaha kaa galayo just a simple color ah waa ujeedin soo kusoo baxay qurux keliya so haddaad channelkii ku cusub tahay subscribe kusoo biir insha Allah sii share garay thumbs up hayga iloobin jazakallahu khayr daawanayseen insha Allah waa inoo videoga dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Ramadaan mubaarak meel ba adduunka joogtiin